السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما أنت واحد إذن سوق بين دونا شخصيات مرة هذا نامني دوني إني دوني ذا ندوش هذا سارنين أما يكونوا لين أما كون كان يكتير سنين فضلا أنت أنا قلت قالين هذا با هديت كحسب تاي channel كنا فضلا سبسكرايب ده بل كان فرو سيادونا قد يتقف كهلا وحيابان مرة بصدقنا هذا با أنا قلت قالوا برنامج كنا ما أنت نيكو كهريان كبلاو كارلوس هافي رودريغيز ninkan madaxiisa sidaad aragtaan waxa ka maqan qeybdan laakiin ma uusan ku dhalan xaaladan oo ku sugan yahay waxa ay ka dhalatay shil gaari oo uu watay markii uu jiray 14 sano asagoo isticmaalay daroogo waxa uu ahaa mid mar walba isticmaala marka uu gaariyada wadayo daroogada ama maandooriyaha sida loo yaqaano waxa uu ku dhacay tabeelayaasha ama baalayaasha ee korontada kuwaaso gaarigiisii uu ku tagay kadib muraayadii gaariga ayaa waxa ay ka qashay madaxa baad ayaa waxa lagu magacaabaa John Ray Blawing haddaba inaad noqotid qofka dunida ku gaaban mararka qaar ayaa waxa ay gashaa buugta recordiska ama taariikhiga John Ray Blawing ayaa waxa uu noqday ninka ugu gaaban dunida kadib markii uu dhintay Chandra Bahadur oo ahaa ninka haystay taariikhdaas ama ninka haystay recordka ah ninka ugu gaaban dunida ninkan ayaa dhererkiisa waxa uu ahaa 59.9 cm culayskiisuna waa 5 kilo kaliya waxa uu dhashay 1993 haddaba waxa uu hantay inuu noqdo taariikhda ninka hogaaminaya kadib dhimashadii Chandra Bahadur haddaba ninka saddexaad aan idin soo wado ayaa waxa lagu magacaabaa Nick Stoppel waa 24 jir waxa uu haystaa recordka ah ninka ugu carabka dheer dunida carabka dhererkiisa ama carabkiisa dhererkiisa ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 3.97 inch kuwaasoo u dhiganta 10 cm ama 10 cm laakiin waxa la sheegaa Adrian Lewis gabadha loo yaqaano inay ka carab dheer tahay haddana ayada weli ma aysan soo bandhigin oo ma aysan la imaan goobaha bandhiga lagu sameeyo taasoo taariikhda qofka ay noqoto mid u diiwaan gasha haddaba taariikhdan waxa hogaaminaya ama hogaankeeda haysta wiilkan lagu magacaabo Nick ayaa lagu siiyay abaalmarino aad u kala duwan maadaama uu yahay ninka ugu carabka dheer haddaba aanu gudubna qofka afaraad aan ku soo qaadanayno barnaamijkeena maanta oo aad marnaba fiilin in dunidan dusheeda saaran yihiin waxa lagu magacaabaa Francisco Domingo marka uu jiray 20 sano waxa uu ahaa mid ku faana in loogu yeero ninka ugu afka ballaaran dunida haddaba qofba wax uu jecel yahay in loogu yeero ninkan recordkiisa ayaa sidaa noqday waxa uu ahaa mid afkiisa kala jiida asagoo dhexmaraya wadooyinka Luanda ee magaalada madaxda Angola afkiisa cabirkiisa ayaa waxa uu noqday 17 cm ama 17 cm waxaana afka gelini jiray caagaga yaryar ama kuwa ay ka dhamaadaan soodooyinka ama sidaad u taqaanin Coca-Cola ama Pepsi-ga afkiisa ayaa waxa uu ahaa mid qaada bahalahaas haddaba afka noocaas ninka iska leh ayaa waxa lagu magacaabi jiray oo taariikhdaasna haysta balka dahabigana ka galay ayaa waxa lagu magacaabaa Francisco Domingo